السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalaha qaaliga aad baan idin salaamay. mowduuceeni maanta wuxuu ku saabsan yahay hooyada uurka leh. saan hore ugu soo hadalnay, waxaan kasoo hadalnay qeybtii koowaad ee hooyada markay uurka leedahay ilaa iyo 3 bilood hore, marxaladihii iyo cunooyinka ku haboon. haddana waxaan ka hadlaynaa qeybta dhexe, hooyada markay gaarto 4 bil ilaa iyo 6 bilood. waxaa waaye xaaladii walac way kasoo baxeysaa. waxay u baahan tahay cunto dheelitiran, carbohydrate, protein, fiber, wax dhan leh, iron leh oo cunugii korinayo oo hooyadii energy ay ka helayso. saad arkeysiin cunooyinka hooyada ay cuni karto waxaa kamid ah inay cunto any type of fruit kasta way cuni kartaa, exactly markii laga reebo pineapple, cananaaska iyo cambaha too much hadii loo cuno ilmahay soo ridaan baa la dhahaa. waxaa ugu fiican hooyada inay cunto fiishka, inay cunto ukunta, inay cunto caanaha, digirta, any type of protein. wax kastoo protein ah way cuni kartaa, waxayna ka saacidayaan cunugii inuu koro si ugu dhaqsiyaha badan, iyadan energy ka hesho, maadaama ay 3 bilood hore laga yaabo hooyooyin qaar inay matagaan zaaid ay daciifaan oo tabar dhigaan. marka cuntooyinkan way saacidayaan jir ahaanteedii. xitaa iron buu qofku u baahan yahay. irontan waxaa laga helaa meelaha oo ironta dhiigay sare u qaadaysaa. qofkii hadii uu daciifo kale saacidaysaa inay cunto hooyadii, inay qaadato kaaroodkii, barbaroonigii, yaanyadii, mooska, waxyaabahaas, hilibka, kulli waa cunooyin isku jiraan. laakiin hooyada hal mar ma qaadan karto cunto culus, waxay qaadan kartaa waqti isku dhow, laakiin wax kala duwan bay cuni kartaa si ay u hesho energy. caanahana aad bay u fiican tahay, hooyadii gaaska kala qabto way ka dejinaysaa. sometimes way dhacdaa inay ka dejin weyso acid badan haduu jiro, ilmahana ay yihiin ilmo aad u timo badan oo kale. markaas inkastoo hadda la dhihi karo this step is not rich, timo badan ma gaarin, laakiin insha allah hooyooyinka uurka leh isku dadaalaan, way saacidayaan waxyaabahan oo dhan. quraacdaada hadii aad boorish ka dhigatid oo fruit ku darsatid, oo qadadii ukun ama malaay ama hilib waxaad heli kartid aad cuntid, muhiimada ma aha bariis iyo waxaas oo kale. sidoo kale hooyada age-gan markay waqtigan markay soo gaarto, age ma aha sorry, waqtigan 4 bilood ilaa 6 bilood markay soo gaarto waxay u baahan tahay isbitaal inay ku xirnaato oo clinic ay sameysato, sokortii, dhiig kar hadii uu jiro, waxaas oo dhan in lagu ogaado, dhiigeeda inuu hooseeyo, sokor hadii ay jirto, sidoo kale dhiiga guud, waxa dhan in laga baaro waaye. cunugii caafimaadkiisa inay ogaato, ultrasound ay saarto, waxyaabahaas oo dhan waa basic. hadii aysan talaal qaadanin, talaalka inay qaadato, intaasoo dhan waa muhiim. insha allah maamooyinka waxaan leeyahay caafimaadka cunuga ha loo dadaalo. waxaa jiro kaniin kaloo dadka saacido oo pregnancy ka dhaho, kaniinkaasna waxaa waaye folic acid badanaa ku jiro. folic acid-kan ilmaha wuxuu ka difaacayaa laf dhabarta iyo maskaxda. marka insha allah kaana barday hal xabaad ka qaadanay, wax weyn maaha. insha allah hal isku dadaalo, isbitaal clinic ha ku xirnaato hooyada. haday tagto xitaa waqtigaas oo kale intay ku jirto 4 ilaa 6, haday tagto 2 jeer is okay, ama hal mar oo medical check up guud soo sameyso. insha allah intaas waa iga talo iyo waano. hooyada isku dadaasho. salaam.